hindida mise Asianka ilmaha Asianka baan dhahnay hindiya u badan laakiin ilmaha Asianka markay xataa guursadaan ilaa iyo ay lacag saving enough ay guri ku gataan ee iskuul dhameeyaan guriga hooyadood iyo aabahood kama baxaan ayagoo isqabaanay la degaan hooyadood iyo aabahood anaka Soomaalida caadadaas waaba ceeb hooyada aaba ma nin weyn oo naaqaba hooyadiisa aabiis la degan arano dhaqankaas meesha ka imaaday waxa xumeeyay waxa egogaas meesha ka imaaday laakiin markay isguursadaan cunuga hindida hooyada iyo aabaha waxay dhaxayaan waa guursanaysaa but the only way ku guursanayso waxa waa anaka la dagaysa waa cunaysa waa cabaysa waa shaqaynaysa lacag walba shaqaysa adii naagta labadiina baa shaqaysin waa dhiganaysiin guriga gadanaysiin gaariga gadanaysiin saving fiican oo nagu filan oo 6 months oo biilashiina haysanaysiin labadiina ba maxalla digriyaashiina haysatiin kadib adduunka ku foofaysin laakiin ku bilaaway ilmiya basementiga ku bilaaway hatta yaraan saaxiibanaha jiro oo computer science dhameeyay asi iyo yar hindiya isku maray dhameeyeen yarkan hindiga ah hadda wuxuu haystaa saving almost $1 million millionka boqolku ugu dhiman oo saving ah wuxuu leeyahay sanadka dambe marka millionkaas xiro hooyaday aabahina ka guuraa raba naagu qaba asi ninka isku maray isku dhameeyeen isku maray guursadeen kan cunugu dhale kan he struggling with saving iyo noloshii kan wuxuu dhawayaa hadda sanadka dambe millionkaas marka gurina uu gataya million uu xirooyaa marka millionkaas xiraara hooyaday aabahina u gooyo ya u create garay marka society-ga noocaas how ay u create gareysteen anagana cashar uga baran karnaa imaanayso anaga waxaan uga baran karnaa waxay tahay waa in meel iska dhigaa dhaqamahan oo meel laga keenay la ogeen oo war hooyadiisa aabihiisu la nool yahay soo xaas qabo war iska dhaaf soo xaas qabo hooyada ay aabaha de ku guuriyaan lagu caynaa iska dhaaf inaan la digtide hooyada aabaha war shalay hooyada aabaha ku guuriyaa lagu leeyahay ma fahamtay so dhaqankaas waa meesha horta ugu weyn oo wiilasha